Soomaaliya si wuxuu jiraan buufinkiiba haddana caasimadii Muqdisho la geeyay oo dhalinyartii ay isticmaalayaan war la ilaaha illa Allah Muhammad Rasuulullah maxkamadda shuuto waxa lagu soo bandhigay dhalinyar buufin cadaysa kulli sad arkaysaan oo buufinkiiyo caadiya oo waliba ay dhalinyartii si layfa iyagoo isticmaalaya loogu soo qabtay war buufinku dhibka dhalinyarta oo qurbaa ku hayay dhamaantood garanaysaane haddana macaasimadii baa la geeyay war qofka geeyay buufinka caasimadda fadlan qofkaas la soo qabto oo maxkamad hala saaro sababtoo ah waxa uu geerno ahaantii mid kamid ah drugska ugu halista badan ee dhalinyarta eberka ka dhigay qurbaha oo haddii caasimadii la geeyay runaantii warkaas waa warweyn haddii qofkaas ganacsado yahay iyo sidoo kale haddii qof shacab intaba yahayba waxaan ka codsanayaa dawladda Soomaaliya xukuumadda intaba iyo maxkamadaba in qofkaasi runaantii meel dheer la geeyo sababtoo ah shar iyo dhibaato ayuu geeyay caasimadda ummadda Soomaaliyeed buufinku waa mid kamid ah dhibaatooyinka waaweyn ee dhalinyarta qurbaha khaasatan Yurub uu ku hayo runaantii dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed nolosha ka riday haddii hadda wadankii la geeyba war waa another level war waa islaamaya